dadkan oo ah dad maata oo badan dumar iyo caruur ayaa ka barakacay deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool halkaas oo ay dhawaan ku dagaalameen maamulada Somaliland iyo Puntland. dadkii rayidka ahaa ee halkaasi deganaa ayay colaadaasi saameysay waxayna ku carareen dhulka buuraleyda ah ee deegaanadaasi ku xeeran si ay uga nabad galaan colaada deegaankaasi ka jirta. deegaana ay ka mid yihiin Dalda iyo Kursudubalay ayaa meelaha ugu badan ee dadkaasi u barakaceen haweenka iyo caruurta u badan kuwaas oo haysan hoy iyo waxa ay cunaan. urur maxalli ah oo lagu magacaabo Somali Development Association oo ka jira deegaanadan ayaa deeq raashin dadkaasi gaarsiiyay qoysas gaadhaya ilaa 200 kuwaas oo ka mahadiyay deeqdaasi la gaarsiiyay. wana kuwan qaar kamid ah dadkaasi oo ka hadlaya dareenkooda iyo siday colaadaasi uga soo barakaceen iyo deeqdan la soo gaarsiiyay. bismillaah rahmaanir rahiim sallallahu alayhi muhammad anagu waxaanu nahay dadkii 3 sano abaartu haysay dabadeedna roob baa Ilaahayna siiyay colaada dabada naloo geliyay arigii waa ka cararay baahi iyo haraad iyo gaajo dhul lagu bayhoofay roob baa da'ay dhaxan iyo bana caruurihii gooyay maxaan ku sheegayay abaartii markii Ilaahay naga doojiyay waxaan u soo noqday colaadana Ilaahay sharkeeda naga dabaaro waxa weeye waanu mahadsantihiin dawladda noo keentay raashinka iyo anigu damacay leeyma sheegin wixii noo keenay raashinka way mahadsan yihiin Ilaahay khayr ha siiyo. waxaanu joognaa meesha la yiraahdo Dalda waxaanu ka qaxnay higlo waxaanu ka qaxnay higlo oo Tukaraq u dhow waxaanu joognaa Dalda waxaanu joognaa dhul dhir hoosteeda waan ku haysanaa caruurtii waan gartay bal dhibaatada aad qabtaan iyo gargaarkii ugu horeeyay maadaama maanta la soo gaarsiiyay dareenkii sidoo ay iga waran ma sha Allah dareenkayagu gargaarka dawladda noo keentayna mahad baan u celinaa dad maata ayaa deegaanadaasi colaaduhu saameeyeen kuwaasi oo hoygii ay ka deganaayeen deegaanadaasi ka cararay waxayna dadkaasi u badnaayeen dad markii hore ku soo barakacay abaarihii ka dhacay dalka sanadkii 2017 faarax dubad goobjoog la socon